الله نحرست عبد محمد أمين وحويري هدي ضيحي لا تجاي هدي تذكري ومراي من ددالنو أنكو ديانو من ددالنو أنكو ديانو تأذيني نجا تكتة عبد الله إن ددالنو أنكو ديانو إن ددالنو أنكو ديانو dadkii baan kula kasay warwar la kasay hayne idinki bana eetirafin war deedada kun sheego hayaan hortaan ma deerna hoobiyo dadkii deedo lahayn dhamaadeen ma inoo dhaxsu biyaan masku dhamaadana shaqfir ana uri wardam qabiyaalad ku daaladay caadi maaye aan waramay dhageysta madaxweynaha galmudug qoor wuxuu yiri ilaa adeerkay madaxweyne xeef la qanciyo oo isagu caanaha igu shubo way caleema saari maayo ayah minaan xaaf joogin على مسار كيكو أقبل ما همية ويري الطوعة هيكيس يا هاي كرسي موعوبة كاعة هو ينبر كرسي هذا الشيء اسمه فلي السنين بدين ولا جايستي ورورك عنا قد يحكي لنا ورك عنا قد يحكي لنا انتانو قبحنا وراكب بحنين هذا طوم تاني على وين غرغر ارقب بلون وهدرا اللي رحاف حفلو وحيريا اللي هذا اسمها ان الركلان سيناي عندهم بيش على الشوك وحنا قاعد الله مايان ورمدحوين سعيدري اسمه مدحوين اسماعيل عمر قال لي جو أنا تلفزيون كتاوي مركز بطلع من دولة جارو قوي نقط أي فترة كان مويري ورمي هذا كور عبد الكريم قولت مركي مدحوينها قلمدو أي واحد يسكت على مدحوينه بطلع عبد الولي قاس مركزه يري بطلع هدي أي تاي هذا فدرالك قلمدو نوابي فدرالك وردت كان فدرالك ده أركان أي يري فدرالك ما كان فكر ده رياضها يا أبو طواب مغلاه أتكون كيف فدرالك شباب حجابتي أنا أركتي فدرال سيدي في برايو نفلا صدف ورسدين فبراير هذا الشيء قاس والدا واي اسبتال اللي جاي الا عطن والكريات روغ ورئيس وزراء خير اسبتال كحوق دالك ايو كبوقدي عسكرتي ku dhaawantay dagaalkii ceel saliini ee bent iska daaya hayahe kuwa dhintana yaa soo booqday war kuwii dhintay raiisul wasaaruhu waa mujaahidiin oo yiri warjub allaan federaalka soo abti uma arnaga takhiir shabeello ee duucaba meel cidla looga tagay xaad sheegaysiin oo waxa la yiri xildhibaanadii wasiiradii Jubbaland aroo ma soo socdaanne ma Ahmed Madoobe iska soo raacdeeyay nabadii nool ku biireen xafiiska ka bax yela xeeray war waxaan ilmi sheegay dad walaal tiile baasabooradi ayaa elbarka loo reebtaa la yiri warnimii aan kurburoogna aan ku halkanay baasaboorka ka tarigay baasaboorka ku dadkay inuu gure wadanka muskuroodanayo horta kurbaroogta madayo bariga show ad sheegayso ee ka tirsan yihiin mafoorka ama sawaafayfka war ma baasabooradi badayskooda ka dhacay arooda madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamed Sayid Aadan وحاصل عيدما بدن اي دولة دبلان كسو دلدشي ميلتري اي نبت سبت اي بوليس اي نكليهين وحاكلاس نيري سيد عيدا لوحا كجري اسكري كستو على استليس كامرقاتها لكن وحاصل كوا نلا كاني هل نين او كلن لي هذا كامرقاتان هرتا كلنا هلا شيغاي مكيات يا مسوا كسوكيا ما ليو ما غير قيامو اي مسوا لغا كeenay tan waxaan u jeedaa tan badan albaabka xabsiga gargaraacaya laakiin waxaan la yaabanahay duqan badan waxa waalay anigu biri ma geedaan ahay war wasiirka waxbarashada golaha barre wuxuu yiri kooy toon gaari ayaa ku wareejiyo yiri wasaaradda waxbarashada maamulgoboleedyada waxaan ugu talagalay dugsiyada inay qormeera ninkii laamiga ka leexiyana waa kula xisaabtamayna ayuu yiri wartu may koowda baabuur sheegaysa ablishu ay soo weerartaan muhiim waxbar ma laga dhig madaxweynaha Hirshabeelle ariyadaha goobax barwaa wasiir waana xildhibaan ma waran iyo gaashaana in ku yaraado madaxweyne ku sii darsan raba goobax baraya ka mudan waa diyeeshaha nabad iyo nolol waxa hore loo yiri وريري يا كوابحو وجهك وارجيا وريري يا كوابحو وجهك وارجيها هي عبد الله كده فكرتي ما هذا ما يعيدها وريري انت ولا هلا يا وريري ترتب لك يوسف كده حد ما هو شاكتا ما حاجه مخفينه ورور ما يسينا قال كعيو ciidamadii Puntland waxay ku xirxireen ganacsato iyo wariyaal ganacsatadu waxay ka cabanaysaa canshuur tiro badan oo lagu soo rogay wariyaashuna cabashadooda ay gudbiyeen hadda labadii qaybood maanta jeelkay ku wada qadaynayaan warmiyaa loo sheegay saxafiyiinta inuu madaxweyne deni dulqaad u lahayn waldan iyo musabbixi soo labahan daraab maaha war may dadka wareereen waa basaaseen afkiin qabsada hadii ka afgoy beerka faada meerana yaa madeeyo mahmaati faarax gololay Allah u naxariista aad ugu dheelay waxaan naqli jiray
shaleedeya shiblehaade shaleedeya shiblehaade shaleedeya shiblehaade sheekooda diide shimbiro weere oo waxay weydiina ayaanta angoolkii galmudug geedku waa lagu waayey meergadii xaaf loo dilu ka mid ah gaalka ayaan qara ku beera oo yiri war angoolka waxaa la yidhi diyaaradii oo raacay ayuu duuliyii ku qabsaday wuxuu la yidhi waxba ma wada taqaanide xeerta xara dheerana marsi war waxaa la yidhi markuu diyaaradii koray masaajida camal kabaa banaanka ku siibtay waxaan hubaa angoolka hadduu nool yahow arrintaan dhegaysto inuu cawada gabay ku saamilayli doono war nimayaw geedka gaboose waa ka waaye mahargeyso aaday madaxweyne farmaajo soo dhaweynaya amaska baaqdahe war ma haysiin magaalada muqdisho maanta meer wadareeda ka dhacay war balangaadkii nabad inoo qofkii wadareed tahay geedka dhiyay haye muqdisho marna ma meed wadareeda mugna ma meer wadareeda wana gudoomiye Umar Finisha soo abaabulay war dad badan baabay guur wadareed iyo dhalasho expressna waa loo baahan yahay arooda waxa maqlaa masaro qaylinaysa dadka si badanayo waxayna dhahaan laba qof ka badan yahay la dhalay warkaan ga dhaxgelinine meer wadareed waxa qabatay hay'adda yiraahdo guriisamo dadka loo sameeyay waa dadka baahiyaha gaarka qaba ee naafada shan wiil iyo shan gabdhood ayay maanta isku meeriyeen war Sheekh Cabdulaahi oo dadkaas iska meeriyay yaa may baaray hadii shirkadooyinka lacagtiyo ka deeqan anina meerkay firiiw ee baago wadaad wax mahriyayo wax loo laabay Sheekh Xayya lambar kooka war Sheekh Soomaad goor uu yiri aniga xaflad meer u socda ayaa wadada laga xiray warnimada waxa Maxamed Yaasiin madaxweyne farmaajo kaya asna ma qofka mahriya asiga rabay inuu kursi meeshado war meher Muuse rabeen mashruuc waxa wuxuu yiri 3 sano la soo dhaafay 30 sano la soo dhaafay lamid ahayd madaxweyne farmaajona dib u dhac ma aan hormar soo ma kordhin kullu ijtimaa gaari waayay qarar oo yiri wuxuu kaloo yiri Xaaji Maxamed Yaasiin musharaxiintii tartamay farmaajo uu khibrad yaray asna khibrada leeyahay doortay uu yiri Xaaji Maxamed Yaasiin loo guuleeyay maastanta qaranku wax ka sheegaya argadaha Maxamed Saleebaan asoo wuxuu yiri qof waliba waxay dhibay nafarkay uga taala war abdillow heestaas hadda wiilkoo biyay qof waliba waxay dhibay nafarkay aga taala ma ku dariya anna dhaabacaygi jecel dibta aata la dheelihaya arooda hadda koor anoo yaraan geedka soo dhacay markaasaan gabaygan tiriyay kablaanka soo dhaco kabajaana ihraantii xeero baarnaan dhaxda ugu dhacay haye dambaane haye maxay tahay gooyo gabagan waa ku degdegtay 2030 ka hor lama fahmi karo aryaadaha ku daalina guri dhagaxa waa tumi karaa gabaga gooyobe war gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha Xaliimo Yarooda wali artay madaxweynaha oo bashareeyo doorashooyinka saxiix waa u soo ambariyay wartii Soomaali waagi noo bariyo jiray ayay duub ku sheegtay waagi bariyo walala waagi bariyo walala waxa kale la yiri waaba bariyay bilicsan arooriyo baxsan maalin bokran war waxa la yiri rasmi doolaan ahayn iyo hadal ruuxayn oo raqiisidu wadaan oo sharciigi ma rabtaan kabigin ka cabsoodo laga daaya rafaadka kun maleska sheego roor marone intee tarabtiine war dadku meeliyo rabaan yoona meeliyo kororaanba ma gordaano warjano dhaaf aashaqan saxso riday aan ka reesta geele soomadiido aanay war Ahmed Mooge wadka ka ciyaartay war baarwaangi jango ugu walka ka ciyaari war abaan darba waa looga deeliniyo war ciyaartu dheeli ku dhaafa war heli waa fiqri madaxweynaha jiidada ciidamada booqdo maadaama taliyaha guud ee ciidamada uu yahay war jiidada waalka kama buuleer ko badanyin haye madaxweynaha iyo jiidada ma ka yeeliyahay war waa hore tuuto gashay jira iska dhaaf war ma laga tagay warka dud bayjaw gaalayaal geeska doontaanu qaato gamuuran gamo gayaxan